waxaan rajaynayaa inuu Cabdiraxmaan noqon doono madaxweynuhu ugu codka badnaa ee Soomaaliland soo maray insha Allah. waxaanu noqonaynaa haddaanu nahay deegaanka xaafadda Daami dadkii ugu horeeyay ee ducada madaxweynaha dhiga bay noqonaa insha Allah tacaala. waxaanu noqonaynaa dadka ugu horeeya ee xilka marka uu qabto baraari doona biidin Ilaahi kariim. dadaal weyn baynu hore u muujinay maantana kii baynu heegan u nahay iyo hawlaha inoo yahay laakiin madasheedani waxa weeyaan inaynu ugu ducayno oo aynu geelaa maanta u qalno madaxweynaha maalmaha dhow Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro intaasaynu horta isugu nimid waa maalin jimca waa maalin samadu furan tahay ilaahay waxaanu ka baraynaa Cirro markaynu codka siinay mid cadaalad Soomaaliland ku haga guud ahaan inuu ka dhigo mid xuquuqdeena iyo xaqeena siiyay ilaahay ka dhigo mid cisi iyo sharaf ilaahay uu Soomaaliland ku siiyay ilaahay ka dhigo Daami maanta markay ducayso ducada Daami daraja lagu helaya ilaahay ducadiina waa aqbalayaa sababo badan buu ku aqbalaya dad soo samray sanado badan samray samirkay muujiyeen ilaahay samada ku geeyay oo dadka Soomaaliland ugu hiiliyeen oo codku ugu badnaa ilaahay idinku karaameeyay ayaad noqoteen karaamada idin saaran qofkaad ku cumaamadaan ilaahay dhulka dhigi maayo waxaan rajaynayaa inuu Cabdiraxmaan noqon doono madaxweynuhu ugu codka badnaa ee Soomaaliland soo maray insha Allah ducada Daami baanu ku helayaa codka ugu badan ilaahay idinkiisa naskan qatale halkan ku turanay ilaahay inuu inaga shabiyo aamin dah hadafka iyo ujeedada maanta isku nimid waxa weeyaan waxaanu ogsoonahay ama ka dharagsanahay in dalkeena doorasho ka dhacayso doorashadina ay nooga harsan tahay dhowr iyo 40 maalmood sahankuna uu meel wacan marayo rajaduna 100% ay tahay maadaama xaaladdu ay sidaa tahay xildhibaanka aqlabiyadda ee baarlamaanka Soomaaliland mudane Barkhad Jaamac Batuun waxa uu gartay oo aanu la garanay inuu sameeyo wanqalkii iyo ducadii madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro maadaama uu runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadaro dhawaan uu kursi ku fadhiisan doono waxa uu xildhibaanku keenay xaafadda 5 neef oo geela oo ugu talagalay ducada oo ay loogu ducaynayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka marka loo dhaariyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala saga qaadire inuu sidii loogu talagalay uga soo baxo waxaanu noqonaynaa haddaanu nahay deegaanka xaafadda Daami dadkii ugu horeeyay ee ducada madaxweynaha dhiga bay noqonaa insha Allah tacaala waxaanu noqonaynaa dadka ugu horeeya ee xilka marka uu qabto baraari doona biidin Ilaahi kariim waxaanu noqonaynaa dadka insha Allah tacaala isbeddelka ugu fiican uu iman doona hadduu Alla qadaro subxaanahu wa ta'aala marka madasheena maanta hadal badani ma jiro muhiimaddu waxa weeyaan inaan u ducayno oo xilka insha Allah tacaala loo dhaarin doono uu ku qabto sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay waxaanu maanta halkan ugu waangalaynaa musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro madaxtinimadiisa maalinta ka dambaysa 13 November bulshada deegaanka Daami waxa ay sii qadimeen oo ay maanta sii hore dhigeen oo ay xagga hore soo mariyeen wanqashi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ee madaxtinimada dalka waxa yaab iyo mucjisa leh bulshada deegaanka Daami ciday hormuud u noqotaa waligeed bacalanka Israa'iil
taas waxaa idinku cad maanta cabdiraxmaan dhakada ku wadnaa berrina isagaanu kursiga saarayna muhiimaddu waa la wada hadlay muhiimaddan isugu maana maanta shirkeenu ku daaran yahay wanqalkii ugu wanqalayay madaxtinimada madaxweynaha mustaqbalka dhow ee maamulka harsan yihiin 40 cisho madaxweyne cabdiraxmaan maxamed ciro inaan muhiimaddoon aan u ducayno muhiimad tahay inoo keliya maaha dhammaan waxaan doonaan codsiga aan doonaan u istaago waxay leeyihiin reer somalilan dhammaantood maanta reeddaan waxay idiga codsanayaan inaad allabariga ama ducada aan ku ducayno madaxweynaha mustaqbalka ee maalmaha ka harsan yihiin inaan faatixada u wada marno inuu si dib yar ku soo baxo madaxweyne cabdiraxmaan ciro innagu maanta waddani ma noqonayno ee maanta waxaynu halkan isugu nimid wanqalkii waddani wanqalkii madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi wanqalkiisii ayaan halkan isugu nimid iskugumaynu iman inaynu waddani nahay iyo inaynan waddani ahayn waddani baynu nahay caawiya beriba waddani baynu nahay labadeenna cod waa waddani weeyaan xisbiga iyo ka madaxweynaha labadu waa waddani laakiin maanta waxaynu halkan iskugu nimid ducada uu qabtay xildhibaanka aqlabiyadda xildhibaan in waxa weeye ay u sadaqeeyo xaafadda isagoo waxa weeye u jeeda markaa inuu madaxweynaha soo socda insha Allah inuu duco uga dhigo waxaan leenahay xildhibaan aad baad mahadsan tahay waan kugu hambalyeynaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay xildhibaanku waxaa loo baahan yahay waa waddo uu jeexay oo reer Somaliland looga rabo inay xildhibaanku ku daydaan oo qaar badan oo kalena wax ka weyn qalaan awrar ama waxa weeye xoolahaas oo kale anagu haddaan nahay beesha gabooye maanta beesha gabooye ma kala maqna manay kala hadhin beeshaasi ciday raacdaana way guulaysataa waa beel barakaysan ilaahay boqoray oo bilay maanta cududayada iyo xoogayagaba waxaanu gelinaynaa xisbiga waddani aadna waxaan ugu faraxsannahay xildhibaankayaga barkad jaamac batuun waa nin abaal leh waa nin yaqaana wuxuu qofku galiyo wuxuu gudaba barkad abaalkiisii waa kaa celinayo wanqashii xisbiga